soo boqoto channelkan ama aad muuqaal ka daawanayso waxaan ka codsanaynaa in aad subscribe saarto channelka gambalelkan aad furato si aad u noqoto daawadaha ugu horeeya muuqaalada halkan idiin soo gelino like saarto videoga hadda daawanaysid siina share gareyso asxaabtaada la wadaagto qaybta hoosena aad nooga soo dhiibato fariimaha aad ka dhiiban lahayd muuqaalkan haddaba waxaa saacadihii la soo dhaafay baraha bulshada qabsaday gaar ahaan barta Facebook page aad u fara badan oo been abuur ah isla markaana lagu baahinayo in gabadha da'da yar Cayuuni Qurux iyo Dayax-Dal Nuurshe ay u qaaday arintaasi been abuurka ah ayaan la ogeyn sababta laga damacsan yahay balse waxa ay baraha bulshada ku faafinayaan sawiro iyo codad been abuur ah oo ay sheegayaan in xiriir u dhaxmaray fanaanka caanka ah Dayax-Dal Nuurshe iyo gabadha caanka ka ah TikTok iyo Cayuuni Qurux arintan ayaa baraha bulshada qabsatay saacadihii ugu dambeysay mana jirto cid si faahfaahsan oo hadashay balse waxa cad arintan inay tahay arin been abuur ah iyadoo Dayax-Dal Nuurshe maalmihii ugu dambeysay baraha uu ku leeyahay social media uga digay bulshada ku xiran inay ka digtoonaadaan wararka been abuurka ah ee laga faafinayo asaga iyo xaaskiisa sidoo kale Cayuuni oo gabar aad u da'yar ayaan la ogeyn sababta baraha bulshada lagu jaa'ifiisanayo sharafteedana meel laga dhacayo maadaama ay tahay gabar akhlaaq leh oo inta badan aan ka soo muuqanin muuqaalo ay ka hadlayso kaliya marka laga reebo challenge ay TikTok iyo Instagram iyo meelahaas ku samayso mana cadda sababta loogu dhacayo sharafta gabadhaasi ee dhulka lagu jeediyo isla markaana baraha bulshada lagu faafinayo inay urur leedahay Dayax-Dal Nuurshe arintan been abuurka ayaan la ogeyn waxa ay ka faa'iideyaan dadkaasi social media isticmaalaya ee qaabka khaldan u adeegsanaya sawirada Dayax-Dal Nuurshe ee gabadhaasi da'da yar ayaa gabar akhlaaq leh isla markaana bulsho aad u fara badan ay ku taxan yihiin baraheeda Instagram TikTok taasoo taageerayaal aad u fara badan ku leh baraha bulshada isla markaana ay kaga barteen qaab akhlaaq iyo qurux badan ku jirto ay u soo gudbiso muuqaalada challenge-ga iyo sawiradeeda oo inta badan bulshadu ay falcelin aad u nadiif ah ay ka bixiyaan dhanka kale Dayax-Dal Nuurshe ayaa saacadihii ugu dambeeyay ama maalmihii ugu dambeeyay Facebook-giisa iyo Instagram-ka uga digay bulshada ku xiran in ay ka digtoonaadaan wararka sheegaya inuu xaas kala guursaday isla markaana uu furay xaaskiisa Farxiya arrinkaas uu ku sheegay arin been abuur ah oo la doonayo in lagu jaa'ifiyo sharafta gabadha Farxiya oo gabar akhlaaq leh oo inta badan aan hadlin isla markaana aan soo gudbininba muuqaalo iyo codad ay iyadu leedahay baraha bulshada lagu arkin oo gabar akhlaaq leh oo ku eg gurigeeda